waa la iska xisaabinaa wixii dhacay magaalada markii la soo galay kadib dad beegsaday ama dad dilay igoo hantidooda inay qaataan rabaan waa la iska xisaabinaa sideedaba inaan magaaladooda joognaa balna hadduu ilaahay yiraahdo maalmahan saa ogtiin magaalada buuqii shaqaaqadii ka dhacday kadib aan imaanay annaga taliyaha uu naga soo horeeyay dadkii soo galay ku jiri oo waxa xasilinta qayb ka ahaa markaan imaanay annaga markii waxa koowaad la shirar amniya la qabanaya shirar amni shirarkaas amnigan ka qayb galayna maadaama dad xiran oo nidaam iyo sharci la aaday aysan joogin magaalo waxaan nimid ciidankuna gudaha ku jiro military gacanta ku hayo dad fara badan oo ciidamada ka tirsaneen ay hubeysan yihiin magaalo wada hubla la wada wareegay ah oo wax kala asaan gareysan aysan jirin duruuftii iyo meeshii wixii la galay iyo shaqada sida loo qabtaana keenaysa ficlan marka waxaan ku dadaalnaa marka hore inaan horta shirar amni qabanno inta laga bilaabo maxaa la saxaa xitaa dadka ka shaqeyn jir amniga oo fahansanaa ayaa magaalada joogin ka baxayba oo kala yaqaanay sida loo kala deganaa marka shirar in la galo oo dhammaan ciidamadii ay qusaysay iyo dadkii yimid iyo dadkii loogu yimid iyo kulli shirar la fariisto amniga looga hadlayo kaliya focuska lagu saarayo ayaan wadnay ilaahay idankiisina wana fududaato waxaan ku guuleysanay in horta dadka hubeysan oo aan ciidamada ka tirsaneen magaalada laga saaro magaalada banaankeeda la geeyo dadkii yimid ahaa ciidamada militariga oo gacanta ku hayay gudahane ayaga laftigooda oo booliisku uu la wareegay maanta iyo shalay booliiska la wada wareegay magaalada kontaroolada gudaha ugu muhiimsanaa isaga la wareegay shaqada qabtay markii booliiskii hadii la soo celiyo macnaheedu waxa waaye dhanka amniga iyo cadaaladda la soo gaaray mar booliis hadii la soo leexdo aragtaan xaajadu way fiicantaa dadka iyo dawladdu waa wada joogi karaan waa macnaha saldhigyaa la furay oo shaqeynaayo riboodyo badanaa loo soo qoraa daxeeraalihii noo keenay maanta markii saldhigii hadduu shaqeynaayo booliiskiina uu shaqeynaayo amniga gudahana booliiskii iyo nabad sugidii la howlgeliyey waxa ugu horeeya nagu soo dhacay waa shaqadanada gaarka ahayd oo ahayd in horta hay-adihii cadaaladda ay fariistaan ay wada hadlaan ay doodaan saas darteeda booliiska maxkamadaha xeeraalinta maxaa la yidhahdaa maxkamadaha haddii ciidan ahaa lahayn haddii ku guud ahaa lahayn dalka iyo qareennadii dhammaan loogu yeeray ama sharci yaqaanadii magaalada jooga dhammaantood loogu yeeray waxaa la rabay in duruufihii hore jireen wixii laga sixi kara laga hadlo haddana dadku la aado inay nidaamka loo soo noqdo sharciga lagu wada shaqeeyo la aado booliiska marka ugu horeeyo waa kana taliye qayb oo runtii aad u qiimo badan sargaal nidaamkii sharciga iska dhaafay xasilinta dhibaatooyinka dhaca iyo duruufaha dagaalada markay dhacaan ku soo takhasusay sida dadka loo wada hadalsiiyo loo xasiliyo magaalooyin rabshado ka dhaceen ay dawladdu idin keentay waa ku kalsoonahay inuu wax badan idin la qabanayo oo hore loo soconayo dadka waxaan rabnaa markii inay ogaadaan marka hore dadka magaalada jooga hadda wixii ka dambeeyay dacwa furan qofka wax tabanaya ama dad laga dila ha tabto ama dil ka qayliyo ama hanti laga qaata ka qayliye qofka dacwada qaba dacwa furan qareennada joogan qareennada ha qabsado dacwo ha furaan haddii dacwadu mid madanay tahay haddii kalena xeeraanta ka dacwoodo haddii ciidan tahay iyo haddii ay mid guud state-ka ay tahay ha u dacwoodo saas ha ku socoto sheekada in xoog wax lagu kala qaato iyo in dagaal wax lagu kala qaato xaajadeeda waxaan rabnaa shirkan kadib inaysan ay dhicin dadkuna ogaadaan dadkana la xago traafikadii meesha fadhido magaaladii xataa in laga dareemo traafikadaada inaad dharkaaga cad firimbigaga hor u qaato magaalada istaagtaa waa shaqada traafikada hor loo galahay ay socotaa arrinta markii garsoorka meeshaan ka shaqeynay gudoomiyaha maxkamadda sare state-ka joogo xeeralihii gudaha joogo sideedaba guud ahaan marka horena ma quseen jaanibka garsoorka wax dhacay markii ay wixii dhamaadeen waxaaba amarka guud ee soo baxo u ahay hay-adihii dawladda oo shaqeynaya sidooda u shaqeeyaan waa marka labada marba waxaa shaqeynayo garsoorka state-ka oo hore u dhisnaya shaqeynaya wixii garsoorkaasi ama hore looga ceeriyey ama rabshada oo ku wajahan booliisku waxay ku amriyihiin inay tilaab ka qaadaan oo aanan la hor istaagin shaqadooda caadi u qabsadaan oo hoos u qabtaan hadduu ciidan yahay ciidanku sharci waa sharci ama garsoor ciidanka ka shaqeeya kula hadlo ama garsooro kii guud oo kaas kan guudaaba sareeya marka nidaamka guud laga hadlaayaba oo ka hadlo oo inay ciidanku dhammaantood u hoggaansamaan garsoorka hadduu ahaa lahay midka state-ka iyo midka ciidanka hadduu ahaa lahay labadaba aanan la dhihin kaasa aniga lagu dacwooyaha kana lagu dacwooyaha ma jirto dembi waa dembi cadaaladna waa cadaalad haddii processka la guda galo ayaa jihada markaasi awoodda lagu wareeji doonaa laakiin jooji haddii lagu dhaho inaad joojisaa qareennada la ixtiraamaa xeeraanta la ixtiraamaa garsoorayaashana la ixtiraamaa dhammaantood
oo la ixtiraamo marka arrinka ugu muhiimsan oo maanta aan rabno waxa waaye horta shirkan booliiska asaa hadda magaalada ugu sal adag oo deegaano iyo guryo qurux badan iska leh oo saldhigidiisa ay dhisan yihiin hadda kadib gudoomiyaha maxkamadda sare state-ka joogahay in dadka hay'adaha ay qusayso oo cadaaladda ay qusayso in shir ama bilaa ama sanadla ama lix bilaa la isku qabto oo la iswaraysto aad ay muhiim u tahay nidaamkiisa u dhaweeyay dadkana fahankii u dhaweeyay dawladnimadiisa u dhaweeyay qofku hadduu ogeyn meel uu kaaga dacwoodo oo dadka aan loo sheegin oo xagga lagu dacwo kara aan la dhihin wadadii xumeed ay dadku qaadi jireen ay qaadayaan marka shirka inaad joogto laga dhigo oo hadda kadib kan anaga amniga iyo cadaaladda isku dhafayna oo hore in loo wada socdaan ka shaqeynayne shirkaas shir hadda kadib aanan noogala baahanino oo state-ka uu qabto heer state lagu qabto ayaan idinka rabnaa hoosaas lagu qabto dadka magaalada joogo dacwa furan hadda kadib waxaa furan dacwo ninka dacwo qaba haddii qof la dilay haddii qof la dhacay saldhigaa jiro sharci yaqaanaa jiraan oo haddaa hanti laga qabto hantidaada gaar u dacwo kartid waa kaa dhacdooyinkii dhacay marka oo markii magaalada la soo galay kadib dhacay haddii dil la geystay yihiin hadda gal inoo soo gudbiyeen booliiskaa jiro waa maasan yihiin kuwa kale oo dhimanna ha la soo gudbiyo haddii dil la geysta tahay iyo haddii hanti la dhacay geysta tahay garsoorka waa kanaaba guud haddii uu garsoorka state-ka uu quseeyana ha loo geeyo hadduu kuwa ciidamada quseeyo ciidamo geystaan ha loo geeyo oo saas lagu wado waa la iska xisaabinaa wixii dhacay magaalada markii la soo galay kadib dad beegsaday ama dad dilay iyagoo hantidooda inay qaataan rabaan waa la iska xisaabinaa sideedaba marka meelaha baarisaha aad samayseen qayb waana soo gaartay qaybaha kalena tilaabaan ka qaaday anaga haddaan soo gaarsiisaan waxaa ballan ah qof uu gambaday nidaamkii meesha ka bax dartiis u dhibaato u geystay inaana magaaladooda joognaa ballan hadduu ilaahay yidhaahdo garsoorkuna booliisku waa kana ciidamada kalena oo qalabka sidana waa ay maqlaayaan booliiskuna waa joogaa garsoorka state-ka sidiisa u howlgalaa halala shaqeeyo waxaa oday ka ah odaygeediyaa jooga meeshaan gudoomiyaha maxkamadda sare state-kaa joogo xeeraalinta dila midka guudaa joogo state-ku intii qof waa la bedeli karaa waan la samayn karaahe hadda kuwan halala shaqeeyo kuwan go-aankooda hala qaato aadaa umahadsantihiin ujeedku waxaa waaye maanta wixii ka dambeeya in dadka la tago xafiisyadiina la shaqo tago booliiska iyo ciidamadaana mas-uulka ah inay xafiisyadiina ku shaqaysaan aadaa umahadsantihiin